بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم دمان ولاليال كسر الوادة تاهي السبايس أو مانت مرتوى هاي عبد السمد آد بو مهتسين هاي عسومي دو عسومي برنامج كبوق آخر بوقنا كتالي مانت نوحاين لو ذاك دونا بوق عوان كيسوي هاي كعنكي أمر توردي وحبر الشق فنلند صدقتين فنلند ودل يوروب كمدة ودلال كيوروب دلال كيوروب كمدة هوية مركا تاريخ بدن بيسو مرتي saddex qodob baan u kala qaadi doonaa buugani markuu horeys taariikh kooban baa idin ka siin doonaa oo qaybtiisa koowaad buugga oo ah taariikhda Finland kadibna hanaanka waxbarasho waa sida Finland ama systemka waxbarasho ay ku dhaqmaan kadibna maxaynu ka baran karnaa hanaankaasi ay ku najaxeen buugga af Turki ayuu ku qoran yahay anna af Soomaali ahaan baan khulaasadiisa idinku soo gudbin doonaa qoraaga buugga waxaa la yiraahdaa Pasi Salbak ومعلن جامعة هارفارد مريكان كوكتالا sidoo kalena waa wuxuu ahaan jiray wuxuu soo noqday agaasimihii wasaaradda waxbarashada ee dalka Finland sanado badan ka soo shaqeeyay taariikh kooban hadaan ku bilaabo dalka Finland waa dal ku yaala qaaradda Yurub u dhaxeeya dalka Ruushka Norway iyo Sweden wuxuu leeyahay biyo xireen ama biyaha goobaha fadhiisan oo lakes loo yaqaano Englishka ayuu caan ku yahay marka waa dal dhibaato badan soo maray laakiin ugu dambeyn ilaashaday huwiyadiisa iyo identity-giisa dalkani wuxuu kamid yahay dalalka gumeysiga soo maray 600 oo sano yani 6 qarni wax ka badan waxay ku hoos noolaayeen dalka Sweden boqortooyada Sweden 100 sano wax ka badanna Ruushka ayay ku hoos noolaayeen Ruushka ayaa marna gumeysan jiray 100 sano wax ka badanna dadkii ay gumeysiyaashu ka tageen oo Ruushka iyo Sweden ay tababareen oo ay ka tageen oo iyagu adeegi jiray ayay ku hoos noolaayeen oo aan dalka faa'iido badan u soo yeelan dagaaladii labaad ee adduunka markay dhaceen waa goobihii uu Jarmalka ku habsaday maarta Hitler waxa ku dhintay dagaaladii ay gobonadooyinka ay ku dagaalami jireen in ka badan 90000 oo qof dhaawaca aan bogsonna yani dhaawaca qof haddii wax gaaraan iska kacay qof maarta lug ama gacan mise il iyo wax waaya oo aan dib u kabsan dadka aan dib u kabsanaynin waxay tiradooda gaaraysaa 60000 halka ay ilmaha agoonta ah ay waalidiintooda dhinteen ay 50000 oo caruur ay gaarayaan ay dhibaatadaas ay ka soo mareen kadib markii dagaaladii iyo wixii ay meel sare meel ay soo gaarsiiyeen waxay ku qasbanaadeen inay aqbalaan shuruudo aad u culus oo adag tusaale ahaan waxaa kamid ah shuruudaha ay aqbalaan ay ku qasbanaadeen inay ka tanaasulaan 12% dhulkoodii taasoo ka dhigan 11% dadkii dhulkaas deganaa inay maarata ay geography ahaan meel kale ay ku qasbanaadeen inay meel kale u guuraan ama meel kale ay degaan tira ahaan waa 450,000 oo qof baa dhulkii ay weligood awoowayaashooda ay ku dugnaan inay ka qaxaan ay ka guuraan Finland dhulkeeda kale ay u guuraan maadaama dhulkan uu kamid noqday midowgii Soviyetka ama dalkii waagaas Ruushka xukuumadda ugu horeysay la dhisay waxay ahayd xukuumad shuuci ah oo communism ah hadda dadkaasi tiradooda waxay gaaraysaa 5 milyan iyo bar dadka ardada maadaama hadda qaybta waxbarashada aan istaagi doono aan dul istaagi doono dadka ardada ah oo iskuulada aada from nursery xanaanada laga bilaabo ilaa iyo jaamacadda ardayda dhigata waxay gaarayaan tiradooda 1 milyan iyo 800 oo arday iskuulada ku yaala dalkaasina waa 3750 yani waxa lagu xasuustaa shirkadii Nokia la dhigi jiray hadda suuqa ka baxday ayaa maarata dadkii iska lahaa oo ay soo saareen ayuu kamid ahaa markii dambe Microsoft ay iibsatay Nokia hanaankooda waxbarasho waa sidee qaybtaasi waxay ahayd qayb kamid ah taariikhda barnaamijka lagu qiimeeyo program for international student assessment la yiraahdo ardayda caalami si qaab caalami ah marka wadan walba waxbarashada heerka dunida dalalka kala la barbar dhigo heerku kaga jira marka la qiimeeyo kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad iyadii Singapore iyo Koreada koonfureed ay isku bedelaan marka waa wadan saddexda ugu horeysa mar walba aanan ka bixin dadka ugu waxbarashada fiican maxaa ka dhigay marka dalka ugu waxbarashada fiican maxaa ka dhigay maxayna sameeyeen waxay sameeyeen anagu maxaan wadnaan ka bedeli karnaa qaybahaas aan usii gudbaynaa marka manhajka waxbarasho iyo wasaaradda waxbarashada waxaa la siiyaa budgetka dalka 12% oo kamid ah waxaa la siiyaa wasaaradda waxbarashada 6.8 bilyan oo euro lacag u dhiganta ayaa waxbarashada lagu bixiyaa sanad walba ahmiyadda ugu weyn ee caruurta la siiyo waa farxadooda iyo in ay noqdaan kuwo isku filan oo madax banaan ma aha xisaabta inay ku dheereeyaan inay qoraal akhris ku dheereeyaan
kow waxaa la siiyaa inay faraxsan yihiin, labo waxaa la siiyaa inay madax banaani ay haystaan oo ay keligood u fikri karaan, kadib wixii ka dambeeya maaragta dib bay ka bartaan baa la aaminsan yahay. waxbarashada ugu fiican ee la baro waa in la baro sida wax loo barto. They teach how to learn. ilmaha waxaa la baraa sidii ay wax u baran lahayn. haddii aad rabtid jajab inaad bartid, jajab sidii lama baraa, sidii uu jajabku u baran lahaaba markii hore la baraa, ama aljabra. kii aragti wax ku baran kara aragtida lagu baraa, dad baa muuqaalada wax ku barta, dadkii maaragtay dhegeysi wax ku barta, dhegeysigooda wax lagu baraa, qaar baa practic waxay demonstration ku sameeyaan gacan la galeen wax ku barta, kuwaasna sidaas ay wax ku bartaan iyo wixii la mid ah. shakhsi walba si fudud ayuu wax ku baran karo, sida uu fudud wax ku baran karo ayaa maaragta loo sameeyaa. ardayda 7 jir ayay iskuul ku bilaabaan, ilmaha yaryar ee Finlandeeska ah ee Finishka ah waxay wax ku bartaan, waxay iskuulka dugsiga hoose ay bilaabaan iyagoo 7 jir ah. taas oo hadda Turkigan joogna tusaalaan 6 jir baa lagu bilaabaa, dalal badan 5 jir wixii ka sii yar bay ku bilaabaan. 7 jir waxay ugu yeeleen waxa weeye ilmaha ilaa iyo maaragta suuliga isticmaalkiisa iyo hurdadiisa iyo cabitaankiisa wixiisa markuu ka adkaado ayaa iskuulka la geeyay. inta ka horeysa guryaha ayaa wax lagu soo dhigay, hooyadiis uma macallin u ah. marka hadhowti haddii ilmaha la isku dhaxqaso mid 5 jir mid 7 jir ah, ilmahan waa la dilaya, hadhow way isdilayaan. sidaa awgeed baa waxaa loo sameeyay ilmo isku da-a ba hal mar fasalka la isla keenay si ay dhexdooda ay bullying ama isdil aynan isku sameyn. cunuga haddii mar walba la dilo waa weligiiba maaragta wuxuu ku hoos noolaanayaa jug iyo dhibaato kale. waxyaabaha la yaab kale ay sameeyaan waxa weeye 4 saacadood ama 3 saacadood kaliya ay maalintii 10 dhigtaan, usbuucii oo dhan 20 saacadood ama wax ka yar bay 10 dhigtaan. taasoo ka dhigaysa reer galbeedka iyo Mareykankaba wadanka ugu saacadaha yar ee waxbarasho uguna tayada fiican. ardayda iyo macallimiinta mar walba way isla joogaan intay iskuulka joogaan oo way isla ciyaaraan, cuntada goobta cuntada way isla joogaan. waxaas oo dhan waxaa loogu talagalay cunuga haddii wax maskaxdiisa kusoo dhacaan si fudud inuu markiiba u weydiin karo macallinka. farshaxanka, musikada iyo shacirada, sportiska waa qayb ka mid ah waxbarashada, mana la dayaco. yani halka anagu maaragta xisaabta iyo physics iyo chemistry aan xooga saarno, ayagu sidaas si lamid ah waxay sidoo kale xooga saaraan farshaxanka iyo musikada iyo shacirada iyo sportiska iyo wixii lamid ah. hanaanka waxbarasho waa ku bara adoo la nool, adoo maaragta nool wixii adigu noloshaada ku saabsan baro. tusaale ahaan muhiimada geedaha oo kale marka la bari rabo ardayga waa la kaxeeyaa meesha geedaha iyo keentaa la geeyaa. geedahan maxay faa'iido inay hayaan, yaa beeray, goormaa la beeray, geed imisa sano ku baxaa, maxaa maaragta mustaqbalka wadan aan geed leh, waa maxay mustaqbalka wadan aan geed lahayn, nabad guurka dhibaatooyinka ay leeyihiin waa maxay. ayagoo markaa keentii jooga 10 maalinta meeshay ku qaataan ayagoo gacanta kula jira. iskuulada iyo macallimiinta iyo lama kormeero ma jiro. tusaalaan wasaaradda waxbarashada waxay soo diraan dad wax kormeera oo ilaaliya ardayda maxaa xilligan ay banaanka u joogaan, macallimiintu xilliga casharada maxay qolka TV ku fadhiyaan, waa la controlaa, dhibcooyin baa laga qoraa, maamulaha nadaafadda iskuulka waxa iskuul waa la qiimeeyaa. ayagu control ma jiro, waa lagu kalsoon yahay, hufnaantooda lagu kalsoon yahay. ardayda uniform xirtaan, uniform sida caadiga ah waa waxa loogu talagalay intiisa badan hoosh uu qabto. waa cunuga faqriga, cunuga taajirka ah, ama guri danyar iyo guri fiican oo qani ka yimaada, si aan lagu kala garan in ilmaha maaragta ay isliidin oo maaragta ay isku mid noqdaan. baa uniform muhiimada weyn uu qabto waa taas. ama iyo ilmaha iskuulka dhigtay kuwa banaanka si loo kala saaro, maadaama ardayda dhan ay iskuulada ku waradi jiraan, dhaqaale ahaan intooda badan ay isku dhow yihiin, lamaba kala saaro, dharkooda caadiga ay ku yimaadaan. iskuulada ma jiro imtixaan standard ah. tusaale ahaan iskuul dawladda ay wada qaado wada siman oo ma jiro. iskuul walba kiis imtixaankiisa u gooniga ayuu qaataa ilaa iyo ay kasoo gaaraan 8aad ay kasoo gaaraan. ardaygu markuu ugu horeyso imtixaan toos u galaba waa markuu 8aad soo gaaro. iskuuladu ma tartamaan ee shaqo wadaag bay sameeyaan. inta la tartansiin lahaa dadka hadii la tartansiin macluumaad bay kala qarsadaan. Samsung iyo Apple hadday kala tartamaan sirtooda isuma sheegaan, laakiin hadday shaqo wadaag sameeyaan wax badan bay kala faa'iidayaan. ardayda intooda badan waxay bilaabaan ayagoo wax qoris wax akhrin bay yaqaana. ardayda gurigahooda iyo waalidiintooda usoo dhiga ayagoo wax akhris iyo wax qorisba si fiican u yaqaana ayay iskuulka yimaadaan marka horeba. caruurta shaqo guri looma diro, homework ma jiro. goobta waxbarasho waxaa loo yaqaan inay iskuulka tahay, gurigana waxaa weeye cunuga inuu naftiisa iyo howlaha kale barto. waxbarashada iskuulka mid lamid ah baa banaanka taala. social learning buu sameeyaa, sida isdhexgalka bulshada iyo adduunka kale, howlihii guriga waxaasuu bartaa. marka shaqo guri iskuulka ugu soo tagaya. iskuul qaas ama private ah ama si gaar loo leeyahay ma jiro, dhammaan waa dawli si sinaan heer sare ah loo keeno. ardaydu waxay ka qayb galaan howl maalmeedka iskuulka sida nadaafadda oo kale, geed waraabinta, jaridda ubaxyada, cuna gurashada iyo si mas-uuliyad loo dareensiiyo, meeshana loo jecleysiiyo. waxaas oo dhan si wada jir bay maaragta ay u sameeyaan, waa laga qayb geliyaa howlaha.
shaqada ugu fiican ee dalkaasi la qabto ma aha dhakhtarnimo, ma aha injineernimo, halkaasi waa macalinimo. shaqada ugu fiican ugu ixtiraamka badan bulshada dhan ay ku tartamaan in haddii ay noqdaan ay aaminsan yihiin inay najaxeen waa shaqada macalinimo. macalinkana waxaa laga rabaa inuu haysto shahaadada heerka labaad magisterka ama master inuu gaaray uu soo dhamaystay ayaa laga rabaa. bachelor macalin laguma noqdo Finland. macalimiintooda waxay u kala baxaan ilaa 5 nooc. xanaanada ilmaha wax u dhiga ilmaha yaryar oo wax u dhiga intooda badan way ciyaarsiiyaan oo way la joogaan oo maarata wax aasaaska nolosha un bay baraan. macalin kale oo waxaa jira dugsi hoose dhiga ilaa 6aad buu u dhigaa. dugsiga hoose waxyaabaha kale oo ay sameeyaan waxaa weeye macalinka xisaabta dhiga kan taariikhda dhiga kan macalimiin kala duwan ma soo gasho, hal macalin baa intaas dhan isku soo gala si ardayda aynan ugu qasbanayn in macalin walba hadalkiisa iyo maarata hadal jawigiisa iyo wixiisa inay la qabsadaan si ay ugu dhibtoon. hal macalin baa loo dhiibaa kaasun bay ilaa 6aad ay la dhameystaan. macalin kale waxaa jira maado markay 7aad soo gaaraan iyo ilaa dugsi sare waxaa wax u dhiga macalinka xisaab bis ku ekaanaya marka 7 jir la soo gaaro. hadaa wixii dhan hal macalin baa isku hayay. hadda 7 jir hadii la soo gaaro kii xisaabta gooni buu u dhigayaa, kii physics gooni buu u dhigayaa, kii chemistry gooni buu, kii taariikhda, kii geography, kii cilmiga bulshada, saasay haddana ay usii kala baxaan. macalin kale waxaa jira farsamada gacanta bara. farsamada gacanta dadka dhan inay falsafad ay wada noqdaan, ay meel wada fariistaan, dad wada fikir inay noqdaan oo theory ku wada nool ma rabaan. dadka oo dhan cunug waa inuu meel hadii musbaar uu ka soo baxo musbaar ku dhufan karo, hadii goliis ka go waa inuu tolan karo, hadii uu garabaatigiisa rabo inuu xirto waa inuu yaqaano, kabihiisa waa inuu yaqaano, dharkiisa waa inuu ka wadaysan karo ama feereen karo, qasaalad waa inuu dharkiisa ku ridi ka soo saar. waxaas oo dhan waa nolosha aasaaska. macalin baa u tababaran oo bara cunuga si uu isku filnaansho u gaaro. macalimiinta usbuuc walba waxay galaan seminar ilaa 2 saac ilaa 3 saac qaadato. usbuuc walba macalinka seminar baa la wax walba soo kordha ama wadan kale hanaan uu sameystay lagu najaxo waa la soo minguuriya markiiba iyagana waa la tababaraayo. usbuuc walbaba dad baa u jooga oo tababara. tusaalooyinka casharada laga bixiyay waa tusaalooyin noloshooda quseeya. tusaalooyinka waa noloshooda tusaalahan hadii la rabo in la baro xagal 3 geesood hadii la baro kuraasta mid kamid ah baa laga tusaya. albaabka hadii rectangle hadii la rabo in la baro albaabka laga tusaya. ma aha maarata TV-ga qaabku u sameeysan yahay, koobkan sidoo u sameeysan yahay, yani shakilada marka la barayo tusaalahan waxyaabo ay arkayaan ayna taaban karaan baa lagu baraayo wax oo aan jirin lama baro. hadhow taas waxaa ka baxaysa waxaan aan bartay maxay tarta xageen ku isticmaalaa ayaa meesha ka baxaysa. aragti wadaag iyo maskax la tuujiyo ayaa ardayda wax laga bartaa. tusaalahan waa maxay khasaaraha ay faa'iidooyinka uu leeyahay baraha bulshada hadii la yiraahdo waqtigu dadka lumiya, faa'iidooyinkiisa akhbaar buu ku siiyaa. waxaas oo kale marka laga hadlayo looma dhigo maarata waa kuwan akhrista looma dhaho, iyaga fikradaha laga aruuriyaa, macalinkana fikradiisa uu ku darsadaa. yaani waa wax la barto. ama tusaale hadii la baro familka yar iyo familka ballaaran faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ay leeyihiin waa maxay hadii la rabo in la baro sida oo kale. manhajka waxbarasho ma aha shaqada xukuumaddu ma diyaariso manhajka waxbarashada. manhajka waxbarashada waxaa diyaariya macalimiinta iskuulka, maamulayaasha iskuulka iyo dawladda hoose. idinka isaqaano isla nool oo noogu dhow carruurta waxay u baahan yihiin idinka u dhow markii idinku soo diyaariyaan waa shaqadooda qayb ka mid ah macalimiinta loo tababaro inay manhajka diyaariyaan. markay macalin fasirayaan kuma u yaqaano macalinku wuxuu yaqaan hogaamiyaha ugu wanaagsan waa kan hawshiisa si hufan u qabsada. macalinka waa kan mar walba waxbarasho u furan, isaga wax barta, ardayda wax ka barta, qaladaadkiisa maarata wax ka barta, khibrad ka kororsada, khibradiisana ay xirfadiisa kobciso. waa cilmi baare saynisyahan ah bay u yaqaanaan. marka la soo koobo Finland waxay qaadatay wada riski ah aan hore loo qaadin in saacadaha la yareeyo. inta hadda soo sheegnay in la sameeyo waxa dawlado badan aynan ku dhiiran karin ay sameyn karin. marka dadkii dalacay maxay ku gaareen najaxan waxaa la sameeyaan waxaa lagu sheegaa in ay iyagu yar yihiin tiriyar maadaama ay yihiin oo 5 milyan bar kale ay yihiin. hadda magaalada aan karaan joogno oo kale 5 milyan bar ilaa 6 milyan way. inta yarta in la maamulo dal ah aad bay u fududahay baa lagu dalacayaa. halka wadamo badan oo dadkiisa ay badan yihiin ay ku adag tahay inay controlaan. luqad ahaan waa dad isku dhow. luqadda Finishka iyo Swedishka ay ku hadlaan. intooda badan luqadda Finishka ay ku hadlaan. marka maadaama luqadihii ayna badneen wadamada badan oo maarata oo luqado kala duwan oo ayna ku qasbaneen luqad isku mid ah in la wada baro hadhowti ay ku adkaato. taas iyaguna luqadooda maadaama ay isu dhow yihiin faa'iido ayaa loo arkaa oo u fududeeyay. caruurta way yartahay yani ilmaha Yurub oo wadan 5 milyan bar ahaa hadii inta caruur iyo inta arday tiradooda saas uma badno. intaan soo sheegnay waa 1 milyan iyo 800 inta in la maamulo ma adka. waa wadan qani ah oo dhaqaale u haysta sidaa darteed waxyaabaha intooda badan waxa u fududeeyay yaa la yiraahdaa. marka
anagu ka Soomaali ahaan maxaan ka baran karnaa mise maxaan sameyn karnaa intaas oo dhan haddaan soo koobno anagoo Finland ma nihin dhaqaalihii ma hayno ma nihin oo tiradii ahaan isku mid ma nihin imkaaniyaadkii juqraafi ahaan iyo waxaas oo dhan kama siman marka waxyaabo laakiin waxaa jirta oo meel walba aad joogtid aan dhaqaale waxa u baahneen ood ku dabaqi kartid noloshaada oo aad ka baran kartid maxaa kamid ah tusaale cunugaad inaad dhiirigelisid uma baahnid inaad wadan Yurub joogtid ama inaad Afrika joogtid ama inaad Asia joogtid uma baahnid inaad qani ahaatid ama inaad faqri ahaatid cunugaad wixii wanaagsan oo uu sameeyo ku amaan waad mahadsantahay maasha Allah si fiican baad yeeshay haddaad tiraado cunugaas way taabanaysaa bini aadamku hal eray baa taabta wixii yar oo qaladaad yar u galayna hadduusan noloshiisaba uusan khatar ku ahayn tusaale hadduusan daaqada ana wax ka eegaynin oo xilliga ustuurayaan la garanaynin uu meel iskaga ciyaarayo ka indhalaabo fadhiga ha ku ciyaaran iyo jeefka ha ku ciyaaran iyo sariirta korkeeda ha ku ciyaaran waxbaha oran waxyaabaha yaryarka ah iskaga indhalaabo waxyaabaha kale oo ilmaha u baahan yihiin kow waxaan niri waa dhiirigeli cunugaaga tan labaad waa waqti geli ilmaha weyn waqti la siiyo waqtiyadaada waqti kamid ah inaad ilmaha gelisaa waa wax muhiim ah inaad la sheekaysataa inaad iskuulkiisa tagtaa activities isaga loo soo dhiibo lagu soo qoro inaad la socoto ma aragtaa inaad ka qayb qaadato howlaha oo iskuulkiisa ay sameynayaan 20 arday haday fasalka dhigato 15 kamid ah waalidiintooda ay yimaadeen oo isaga iyo laba kalena aynan waalidiintoona imaan walaal waalidkaas meesha muxuu iman waayay maxaa kasi ah marka inaad ka qayb qaadato haddaan tahay waxba u sameyn karin inaad ka qayb qaadato Turkiga oo kale waalidiinta waxyaabo ay ku dhiman yihiin waa afkii luqadii baa man la isla garanaynin oo waalidka u tagaan ba siday raba macalinka uguma soo hagar bixi karaan oo maarata macluumaadkii u baahan yihiin oo ardaygooda ku saabsan kama cil bixi karaan fasalada oo dhan hadda Turkiga hadda aan joogno Ankara oo kale iskuul walba waxay leeyihiin WhatsApp groups oo wixii soo kordho oo dhan lagu dari karo marka ilmaha inaad xoogaa maal galisid haddii imkaaniyaadka ay haysid way wax qasab ma tusaale miis isagu u gaar ah kursi u gaar ah laptop haddii la heli karo qol isagu u gaar ah mise wax ay ku dhigtaan ardaydana hadda qol isku geys qolka akhriska aad u bixisid waa wax ma aragtaa iyadana la sameyn karo waa haddii la heli karo laakiin wax qasab ma aha cunuga howlgali tusaale cuntadiisa isaga ha gurto sariirtiisa ha goglado alaabta wax ku cun ha qaado mas'uuliyad ha dareemo shaqada ha sameeyo dharkiisa qasaalada ku rito ha ka soo saarto ha ka wadaysto hadduu ka wadan karo ilaa intuu sameyn karo ha sameeyo wax walba kan ugu yar xataa waxbuu sameyn karaa tusaale u noqo tusaale wax akhrinta oo kale ilmaha dhigta ayay wax ka maqlaan indhahana waxbay ku bartaan ilmaha waa inay maaragtaa tusaale loo noqdo oo adigu ugu yaraan haddii cunuga maalin walba wax akhriya dad leedahay oo abi hooy idinku wax akhrina weligeed ma arage wax akhriska idinka aad sheegaysaan idinku waa nooshiin maxaa anigu ugu dhibaysaan meesha wax ka tusaale qaadanaya laakiin maalin buug af Soomaali mise afkii aad taqaanin soo qaad haba akhrin haddana bog aad ka akhrisid horta adoo gacanta ku haya ku arko kadibna wuxuu ku dhiiran karaa inuu wax akhrin karo oo waxna sameyn karo intaad isaga salaada tuko aadan dhin adigu hortiis ku tuko quraanka akhrintaada adigu akhri marka tusaalooyin wax ku bartaa marka casharkeena intaasan kusoo koobaynaa waxaan kula talinayaa buug la xiriiro isagana isla Finland laga qoray oo ay soo dhow yihiin hadda wasaaradda waxbarashada qaybteeda jaamacadaha ee dadka dhigta qaybta faculty of education dadka ka baxay oo ay qasab ku tahay inay wada akhriyaan buug la yiraahdo ubaxi cadaa wadankii ubax cadaa isla Finland laga qoray taariikhdiisa qayb kamid ah waxyaabo badan ay kaga sheekeynayaan marka halkaasaan kaga baxaya aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.